dadka Soomaalida ah ayaa bariisamaadkii ahaa dad reer guuraa oo inta badan aan lahayn deegaan dhab ah waxayna badi ahaan jireen xoolo dhaqato noocyada kala duwan ee xoolaha ay si caadi ah u dhaqan jireen inta dabadeed geelu waxa uu ka mid yahay xoolaha loogu dhaqashada badan yahay guud ahaan dalka dhakhaatiirta ayaa sheegta in caanaha geelu caafimaad ahaan u fiican yihiin guud ahaan dadka markan waxaan ku sugnayn meel 25 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo jooga duleedka magaalada Kismaayo meel qiyaas ahaan u jirta 20 ilaa 25 kiiloomitir magaalada Kismaayo ninka arkaysa mid kamid ah asxaabtii halkan keenay caanaha geela la cabaya gaawa igu maqan asxaabku ay la socotayna ninkasta wuxuu liqay min gaawi ama cabay wali geeli wala la sii jeedaan annagu dadka cabayaan dabcan qayb ka ahaa waana wada wali cabidiisi Caano waa nin saaxiibkaya Caano Abdullahi waxaana caana u raadsanay baadiyaha magaalada anagoo koox ah waxaan ka aanbabaxnay magaalada Kismaayo intaan ku sii jirnay wadada waxaan sii arkaynay dhul daaqsimeed daymo dawo u ah dugaalna ku fiican caafimaad ahaan waa annagii oo dhex joogna geel qaar ayaa hadda la lisayaa geela kuwana wali lama lisin waxaa bilowday qorshihii aan u soo baxnay oon u soo jarnay 25 kiiloomitir oo ahaa inaan cabno caano waan bilownay annagoo dhowr ah oo waxaa durba markaasi naga muuqda shucuur waxaan caana cabnaba dhammaanteen waxaan dib ugu soo laabanay dhabihii aan hore uga baxnay magaalada Kismaayo annagoo oo ku soo guryo noqonay Kismaayo